وصوبها كياني سؤال صدحات وحويا يا كمسؤولة سؤال أفرادنا وحويا راد كاي كتكتي إيو وحيابها اللي قبان كرم سؤال كواد سعر بركة وبركة دي طبعا دخلقات أما معيشة ضعيف قالي قروا دخلقي ضدكنا وحبتها رواية أما وقوين وايا وحي سوق أو هروا بقوين شري مشاهر كشغالها دولة عسكرتها قولياشا سنة كي هروا أما بشي هروا وحي بقوين شري وحي كير سوق كقوية ويسعر برا طبعا وحا كياني سيدا حلوانا بدن بكا دواتيين لعاق حداف ولا صوت دابعي سنة كي لبادي يكون إيو صدح أفريا طبانكي شنية طبانكي اللحية طبانكي وحن فيلا لعاقتا أي نقوانس إن ميسانية دائع عصبي وحي أهايد بقول إيا لباتن بليون أو شيرين أو أهل عاق عصبي إن نقوانس إن ميسانية دي لبادي يكون إيا أفريا طبانكي شنية طبانكي iyo 16 waxa kaloo keenay kharash dheeraad ah oo ka baxsan miisaaniyada oo la galay sanadihii ugu dambeeyay gaar ahaan 16 iyo 17 kharashka dheeraadka waxaan ku soo ururiyay $135 milyan ayaa xisaabaadka guddi dhaqaalaha horaan ahaayo xisaabaadka banka dhexe iyo dahabshiil u dhaxeeya $135 milyan ayaa lagu bedeshay lacag shilin Soomaaliland lacagtaasna wadanka way ka baxdo iyadoo kaash ah oo dollar waxaana xawilay dahabshiil haddaad eegto lacagta la soo daabacay ee $120 bilyan ah waxay u dhigantaa ama in yar ka yar tahay lacagta kaashka ah ee dollarka ah wadanka dibadda uga baxday ee aan dib u soo noqon ama waxba lagu soo bedelan dabcan waxyaabaha ugu waaweyn ee keenay bay ka mid tahay in dollarkii laga waayo suuq xildhibaanadu waxay ka dhawaajiyeen qaadka iyo alaabta la dhoofinayo alaabta soo degtay iyo waxaas taa waxa ka sii daran iyadoo uu ka baxay dollarkii suuqa uu ka baxay dollarkii oo waxba lagu soo bedelay arrinkaasi haddaad eegto xisaabaadka banka dhexe iyo u dhaxeeya dahabshiil waad ka helaysaa waxa keenay la xisaabtan la'aan baahsan oo hay'adihii maaliyadda awoodii lagala wareegay gaar ahaan sanadadii dambe 2015 16 iyo 17 waxa la fadhiisiyay oo aan shaqayn hanti dawrihii guud xisaabiyihii guud saddex gudoomiyana way iska bedeleen banka dhexe arrimahaas waxay ku tusinayaan hay'adihii u xil saarnaa ee controlka ama la xisaabtanka hayay in iyagana la farageliyay sida aawadeedna ay ku suurta gashay in musuqmaasuq baahsan uu dhaco guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada iyo guddiga ilaalinta hantidhowrka laftoodu may shaqayn oo waxay ka mid tahay meelaha awoodaha leh ee dee kontaroola ama la xisaabtama xukuumadda yaa ka mas'uula dabcan waxaa ka mas'uula dowladdii xukuumaddii kulmiye ee dhisneed 2013 ilaa 2017 waxa isaga kala dambeeyayna saddex wasiir oo aynu garaano oo samsan ugu dambeysay cabdicasiis oo golaan ka tirsanaa iyo maxamed xaashi oo sanadkii u dambeeyay
labadii kun iyo 13 hayay dabcan waxa kale oo ka mas'uula golaha wakiilada qayb uu ku leeyahay dad xusuusataan miisaaniyadii 2013 14 iyo 15 waxaa lagu ansixiyay duuduub wax la yiraahdo arrinkaasi khalad weyn buu ahaa lagama doodin waa meelaha golaha wakiiladu uu runtii ka gaabsaday waajibaadkiisa waana la qaybsanayaa mas'uuliyadda cidda keentay xaaladda tan dabcan sicir bararka ah ee baahsan askarta waxay u dhigantaa intii ay goyn jirtay 2010 xukuumaddii daahir riyaal ay u dhigantaa inkastoo la kordhiyay 100% misna waxa aafaysay oo hoos u dhigtay qiimaha sicir bararka maxaa laga qaban karayaa su'aasha u dambaysa xukuumadda cusub waxa hor yaalla dhowr qodob muhiim ah waan ku waafaqsanahay number 1 in daraasad buuxda ay samayso xukuumaddu intii aanay ku degdegin hawlaha sicir bararka lagu daweynayo waa arrimo halis ah waa arrimo waqti soo jiitamayay ma aha arrimo si hawl yar inta guddi loogu saaro ay xalkeeda keeni karto laguma heli karo xalkeeda muddo yar oo 3 bilood iyo 6 bilood waa khalad waxaas waa arrimo dhaqaalaha khuseeya way gashay mudday soo jiitamaysay way soo ifbaxday waxa lagaga daweysmayaa ama dawadu waxay noqonaysaa sanad iyo 2 sano inay sii jiitanto arrimahaas oo kalena laguma galo si degdeg ah marka waa in daraasad ay samaysaa dawladdu soconaysa muddo 3 bilood ah inay raadsato la taliyaal iyo dhaqaalayahano haddii aanay ka mid ahayn xukuumaddeeda in baanka dhexe loo sameeyo board of directors cusub waxaad xusuusataan xeerkii baanka inuu waajib ka dhigay in la sameeyo waxa la yidhaahdo board of directors ama guddiga maamulka sanadadii hore waxaa jiray in la magacaabo board of directors ka kooban tujaarta haddaad hadda eegto board of directorska xukumo baanka dhexe waxaa ku jira dahabshiil iyo Teleson iyo bakhaarleyda nimanka ugu waaweyn wax soo dejiya nimankaas waa nimankii la controli lahaa ayaa maamula oo board of directorska siyaasaddiisa gooya baanka dhexe siyaasaddiisa gooya taasna waa khalad la galay oo u baahan in si degdeg ah looga gaaro si loogu biiriyo dad dhaqaalayahana sidii xeerka baanku qorayay la hubiyo inay dadkaas yihiin dad wax u taraya baanka dhexe aan ahayn kuwa lugta jiidaya waxaa muhiim ah in la xakameeyo miisaaniyadda sanadkan iyo sanadka ku xiga laguna galo oo lagu xakameeyo way uga darasaa wax weyn weeye la saadii la sarf hadii suuqa xorta ee sarifka lacagaha la farageliyo waa looga daraya